Waxa uu ahaa meher aan loo kala harin, farxadda goobta haraysana qofkii jooga ayaa qiyaasi kara qiimaha halkaas ay lahayd. Waxaa la hantiyey oo wehelkii dhabta ahaa heshay Hoodo Garees oo ahayd suxufiyadii abwaanad ay dadku aad ay u jecel yihiin. Goobta meherku ka dhacaya waxaa buux dhaafiyey boqolaal qofood. Intii hoolka uu buuxsamayna waxaa dadku ay gaareen heer ay istaagaan bannaanka hoolka. Meherka gabadhan oo ahaa mid tusaalihiisa xambaarsanaa waxaa dadku kulmiye ka mid ahaa madax ka tirsan xukuumadda Somaliland. Hoodo Maxamed Nuur Hoodo Garees ayaa dunida ka xulatay ruuxii nolosha ku daadahin lahaa, isla markaana Alle uu calafkeedu ka dhigay, waana Maxamed Cabdulaahi Dhagacade. Maxamed waxa uu ka soo jeedaa dhulka Daraawisheed oo hadda loo garan og yahay gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn. Hoodo in badan haasaawaheeda ay raggu danayn jireen, waxaa ugu dambeyntii hantiyey Maxamed Cabdulaahi Dhagacade. Hoodo Garees oo meherkeeda uu ka dhacay magaalada Hargeysa waxaa laga bixiyey yaradahayd 20,000 oo doolarka Mareykanka, gabaati gaaraya 30 milyan oo shilinka Somaliland. Sidoo kale waxyaabaha cajiibka ah ee meherkan waxaa ka mid ahaa in caruusadu ay joogto goob aan ka fogeyn halka meherku ka dhacayay, isla markaana halkaas loogu dhisay aqal Soomaali si weyn loo qurxiyey. Waxaana aqal Soomaaliga sidoo kale la dhex dhigay caano, cunto dhaqameed iyo sidoo kale agabka hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu ay u leeyihiin. Hoodo Garees oo ahayd caruusada ayaana aqalka la dhex fariisiyey, halkaasna waxaa ku booqanayay hablihii xilligaas xaadirka u ahaa kasoo qaybgalka meherkeeda. Hambaliyo ayaanu leenahay Hoodo Maxamed Nuur Hoodo Garees iyo sidoo kale saygeeda dunida ay ka xulatay Maxamed Cabdulaahi Dhagacade.